bariga iyo bartamaha soomaaliya qaybtii koowaad. bartamihii qarnigii 19aad ayaa xeebaha bari iyo bartamaha soomaaliya waxaa ka abuurmay laba boqortooyo oo yaryar oo door muuqda ku yeeshay siyaasadda soomaaliya intii uusan gumaysiga reer yurub ku habsan geyga soomaaliya. mid waa saldanadii majeerteen sultanate ee bari oo uu ka talinayay boqor cusmaan maxamuud. midda kalena waa saldanadii obyo sultanate ee bartamaha ee uu ka talinayay sultaan yuusuf cali kanadiid. saldanada majeerteen waxay bilaabatay bartamihii qarnigii 18aad waxayse si wacan u muuqatay qarnigii 19aad ee uu talada hayay boqor cusmaan maxamuud oo khidmad ka qaadan jiray dowladda ingiriiska oo maraakiibteedu ku degi jirtay xeebaha bari marmar boqorkuna caawin jiray badmaaxiinta. xilligan uu talinaya boqor cusmaan waxa uu qaadiyey siyaasadda suuqa xorta ah waxaana siyaasadani keentay in dhaqaalaha saldanadu kobco. waxayna dhoofin jirtay xoolaha nool, baalka gorayada iyo xabkaha waa baydiga. saldanadani xor bay ahayd ilaa 1800. saldanada majeerteen waxay dhacday caaladda hore ee geeska afrika. bari waxaa ka xigay badweynta hindiga, koonfur waxay saldanadu fidsanayd ilaa dooxada nugaal. galbeed waxaa ka xigay dhulka soomaali galbeed ee ingiriiska. si loo garto inta ay saldanadu ka faltami kartana waxaa ingiriiska talaaligu saxiixeen heshiis bishii shanaad shanteedii 1894. waxaa heshiiskaasi lagu qeexay in saldanada majeerteen dhacdo bariga 490 meridian. dilitali waxay dhacday bariga taleex iyo baran. 1906 ayaa cavalier bostoleza iyo jenaraal isway saxiixeen heshiis u aqoonsanayay in baran ka tirsan tahay saldanada majeerteen ee bariga. waxaa kaloo isla heshiiskaasi qirayay in dowladda talyaanigu mas-uul ka tahay wixii saldanada boqor cusmaan u geysato dhulka ingiriiska ee soomaaliyeed british somalilan. xartuurta saldanadan waxay ahayd maalgaal oo ku taal xeebta badweynta hindiga. dagaalkii qarnigii 19aad ayaa waxaa ka aloosmay saldanadii maalgaal ee majeerteen dagaal sokeeye. markii loola adag dhex maray boqorka iyo nin adeerkiisa ahaa waa yuusuf cali kanadiide. dagaalkaasi wuxuu socday muddo 5 sano ah kadibna wuxuu dhammaaday markii kanadiid loo musaafuriyey dhulka carabta. 10 sano kadib ayuu kanadiidna oo wata qoryaha loo yaqaan lixlaha hadhaawi iyo kooxa minti lahaa oo taageersanaa kasoo degeen xeebta hobyo. halkaasna wuxuu sanadkii 1870 ka ukay saldanadyan. saldanada hobyo waxay fisaneed celdheer ilaa dhuusamareeb oo ah dhanka koonfur galbeed, galaadi ilaa kaalkacyo oo ah dhanka galbeed, jariiban ilaa garacad oo ah dhanka waqooyi bari iyo badweynta hindiga oo ah dhanka bari. saldanadii bariga iyo bartamuhu waxay qaayibeen habab siyaasadeed oo meelmar noqday oo ku dhisnaa tala aruursan oo saabtay dhul baahsan. dowladaha talyaaniga, ingiriiska, jarmalka iyo faransiisku waxay dooneen inay saameyn ku yeeshaan saldanadaha intay ku tartamayeen hadashada jasiiradnimada soomaaliya. dagaalkii 1880 dowladda ingiriisku waxay noqotay tii ugu horreysay oo xiriir gooniya la yeelata saldanadii majeerteen ee bariga.
haddana toddobadii bishii afraad kun iyo siddeed boqol siddeetan iyo sagaalkii ayaa dowladda talyaanigu la yeelatay saldanadii baargaal heshiis uu talyaanigu ahaanayay gaashaanka saldanada. bishii labiyo tobnaad kun iyo siddeed boqol siddeetan iyo sideedii waxay talyaanigu la galay saldanadii hobyo heshiis lamid ah kii uu la galay saldanada bari ee majeerteen. waxay tan majeerteen cusboonaysiisay heshiiskaas toddobadii bishii afraad kun iyo siddeed boqol sagaashan iyo shantii. tan hobyana waxay cusboonaysiisay koob iyo tobankii bishii afraad kun iyo siddeed boqol sagaashan iyo shantii. qodobada heshiiskani waxay si cad u qeexayeen inuusan talyaanigu faragelin ku samaynin arrimaha gudaha ee saldanadaha iyo in la ilaaliyo iyo in si loo ilaaliyo danaha dhinacyadii wadaagay heshiiska talyaanigu u soo diro ergo labada saldanadoodba. isaga oo ka faa'iidaysanaya heshiiska uu talyaaniga la galay ayaa suldaan yuusuf cali qorsheeyey inuu kula looltamo suldaankii siqsimaan dhulka seeraha la leh waqooyiga washiikh. wuxuu kala dareeyey inuu kula raactamo boqor cusmaan dooxada lugaal si uu uga hortago boqor cusmaan maxamuud. wuxuu ku qancay heshiiskii uu la galay talyaaniga oo gaashaan haynta ku dhisnaa. labada saldanadoodba waxay xeeliyeen danahoodii dhulfidsiga ahaa waxayna ka faa'iidaysteen dowladihii itaalka lahaa ee ku tartamahayay geyiga soomaaliya. si kastaba ha ahaatee waxaa murgay heshiiska talyaaniga iyo hobyo kadib markii kennedy diiday kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii soo jeedin oo ingiriisku watay oo ahayd in cutubyo ciidan ingiriisa kasoo degaan hobyo si ay u baacsadaan xoogagii daraawiishta. arrintan darteed ayaa suldaan yuusuf cali la afgambiyey waxaana isaga iyo wiilkiisa cali yuusuf loo musaafuriyey casab oo eritrea ah. dhanka kale bishii saddexaad kun iyo sagaal boqol iyo kowdii ayaa boqor cusmaan fidiyey seedihii saldanadiisa kadib markii uu qabsaday laba tuulo oo gobolka mudug ka tirsanaa mudug oo ahayd dalawadii kennedy. maadaama labada saldanadoodba heshiis kula jireen talyaaniga waxaa ka soo shiraacday cadan junior bostolozia oo ahaa musulkii aagaas. wuxuu soo gaaray madashii boqor cusmaan ee baargaal si uu cadaadis ugu sameeyo boqortooyadu inay ka noqoto labadii tuulo ay qabsadeen. boqor cusmaan arrintaas waa ka maagtay. dowladda talyaanigu waxay ka walwashay haddii uusan boqorku hoos dhimaan taladeeda inay adkaan doonto maaraynta saldanadaas. intay arrintan ognayd ayaa wasiir talyaaniga u fadhiya qaahira dhowleyn ku helay warqad uu boqor cusmaan u diray dowladdii cusmaaniyiinta ottoman empire oo uga codsanayay in xayndaab difaaca loo sameeyo in dabadanti majeerteen soomaali ama dhulka majeerteen ee xorta ah ee soomaaliya. wuxuu talyaaniga ka war helay abaabul ciidan ee ay waday saldanadu. haddaba si aan arrintu faraha uga bixin wuxuu talyaanigu go-aansaday in boqor cusmaan la layliyo. markii dagaal ee boolka
ayaa wuxuu duqeeyey bareeda bandarqaasim oo boosaase oo lala beegsaday maqaaladii saarada ee saldanada. boqorku wuxuu u baxsaday dhulka gudaha ah, ciidamada talyaanigu waxay qabsadeen magaalooyinka calula, bandarqaasim, bareere iyo mucaayo. boqorka waxaa lala helay dagaal kadis ah, dagaallo badan oo ka hortag ah wax lamida kumuusan helin. dhanka kale waxaa ingiriisku baare u waayey dhaqdhaqaaqii daraawiishta ee dooxada nugaal, dib ugurashuuna bilaabay. xiriirkii wacnaa oo boqor cusmaan la lahaa daraawiishta wuxuu buray markii daraawiishtu weerar ku qaaday dhulkii boqorka ka talinayay. inkastoo boqorku iska caabiyey daraawiishta, haddana waxaa wiiqay la dagaalankii talyaaniga, wuxuuna noqday mid u dabacsan markaan daraawiishta. haddaba wuxuu doorbiday inuu hadal gobeed la yeesho talyaaniga. dowladda talyaaniga oo arkaysay khatarta daraawiish ku haysay banaadir ayaa dhankeeda dambiday inay hadal la furto boqorka. wadahadal dheer kadib waxay saxiixeen heshiis adag bishii 3 1910 halkaas oo talyaanigu ku magowsaday